waxaanu ballan qaadaynaa inaanu nimaadno magaalada Ceerigaabo ee magaalada madaxda gobolka Sanaag si aanu wax uga qabanno qaxii iyo shaqaaqadii foosha xumeyd ee ka dhacday aanu gacan u marino waxaanu ka xunnahay wixii qalloocday oo dhan ee ka dhacay gobolka Sanaag waanu ka xunnahay waxaanu diyaar u nahay inaanu daweyno oo aanu guud ahaan daweyno gaar ahaanna Ceerigaabana sii daweyno ilmaadarayaal iyo walaalayaal waxaad noogu soo hagaagtaan ragga halkan taagan iyo inta maqanba ay ku matelayaan xubnaha iyagan kooban aan ka hadlayno waxaad noogu soo ogaataan aan ugu ogaataan nabad maanta gacantiinay ku jirtaa idinkaa meel u fadhiya idinkaa isugu tegey idinkaa rogrogaya idinkaa dhinac walba ka eegaya dadku waa dhowr nooc dad badan oo dagaal doonaya baa ku jira shirka laftigiisa afku dhiiglaa jiraya gacanku dhiiglaa jiraya kuwo kaloo idin abaabulaa jiraya kuwo kaloo dabshidaa jiraya kuwo nabadii doonaya jiraya kuwo ehelnimadii doonaya ku jira madax dhaqameedka kala duwan ee reer Soomaaliland oo caawir beenta kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa waxa ay ka hadleen shirka beesha warsageli ay ku qabsanayso gobolka Sanaag waxayna madax dhaqameedkani ay beeshaasi ugu baaqeen inay shirkaasi ay ka soo saaraan qodob laga hadlayo nabadgelyada Soomaaliland waxay sidoo kale ay sheegeen in beesha halkaasi shirka ay ku qabsanaysa ay u dhigeen gogol nabadeed magaalada Ceerigaabo ee gobolka Sanaag waxaanu shir jaraa'id ku qabanaynaa magaalada Hargeysa annagoo ah salaadiin madax dhaqameedkii oo ka kooban magacyada ismaad oo dhan ka kooban shirkan jaraa'id aanu qabanayno waxaanu u jeedinaynaa shirka ka socda magaalada Ceelbu ee gobolka Sanaag waxaan leenahay marka ugu horeysa waa salaamaynaa shirka waana soo dhaweynaynaa shirka waana hambalyeynaa shirka uu hogaaminayo Suldaan Siciid Suldaan Cabdisalaam Suldaan Maxamuud Cali Shire iyo ragga beesha ka tirsan ballaaran ee halkaa ku shiraya mahadnaq iyo bogaadin dabadeed waxaan u soo jeedinaynaa beeshaasoo ah beel nabadda ku suntan beeshaasoo ah beel waxgaradkeedu aad u badan yahay beeshaasoo ah beelihii la garanayay waxtarka ay lahaan jireen ee dalka u leeyihiin ilaa iyo soo jireen waxaanu ka codsanaynaa marka ugu horeysa shirka in ilaahay go'aankii lagu badhaadho ee lagu barwaaqaysto ee dalka iyo dadkaba wuxuu tara ilaahay inuu waafajiyo ay ka soo saaraan beesha halkaa ku shiraysa ee ballaaran ee shirku u socdo waxaanu u soo jeedinaynaa inaanu shirka ay ka soo saaraan nabadgelyo waxaanu ka cudur daaranaynaa ama ka bixinaynaa xaal iyo hadiidanka ee bahay leeyahay wixii la mid ah shaqaaqadii magaalada Ceerigaabo ka dhacday ee foosha xumeyd ee dadku ku kala qaxay ee wax badan oo aan imika halkan lagu soo koobi karin ay ka dhaceen wixii halkaa ka dhacay waxaanu ka bixinaynaa marka hore xaal annagoo aad ugu xun dadka wixii ka dhintay ee halkaa ku dhintay dhinac kastaba ha ahaadeene waxaanu ilaahay uga baryaynaa in ilaahay jannatul firdaws a'laa geeyo gacanka xaqdara baadishay wixii ku dhaawacmana ilaahay inuu u boogadhayo waxaanu ballan qaadaynaa inaanu wax weyn ka qabanayno oo dhammaystirayno wixii nabad lagu helayo ee halkaa ka dhacay waa inta yadan shirayso halkaa ka garan doontaan wajiyadooda iyo magacyadooda oo ay ku jiraan dadka waayeelka u ahaa ee madax dhaqameedka u ahaa ee nabad talinta u ahaa ee culimada u ahaa ay ku dhan tahay ballanqaadka buuxa baanu bixinaynaa oo aanu meesha ka bixinaynaa inaanu ka yeelayno
waxaanu ballan qaadaynaa inaanu nimaadno magaalada Ceerigaabo ee magaalo madaxda gobolka Sanaag si aanu wax uga qabanno qaxii iyo shaqaaqadii foosha xumeyd ee ka dhacday aanu gacan u marino waana ka jawaabi doonaa hadday naf iyo maalba tahay wixii halkaa ka dhacay siiba bililiqadii iyo arrimihii foosha xumaa iyo wixii dadmiidyaha ka sii daayay aan loo baahnayn intaba waxaanu doonaynaa inaanu gacan maris ka samaynaa waxaan leenahay waan hadalka kaga baxayaa oo madax dhaqameedka kale iga dambaynayaan waxaanu idinka sugaynaa shir nabadeed oo nabadgelyo ku baaqa dir baa u lahaan jirteen raggii lahaa baa tihiin reer looga bartay baa tihiin in nabadgelyo ka dhacdo oo ashir nabadgelyo soo saartaan oo ku shaqaysaan oo aanu idinkula shaqayno ayaanu ballan qaadaynaa ilaahayna waxaanu ka baryaynaa mar labaad in talada toosan ilaahay idin waafajiyo gogol nabadeed oo aanu go'aan ku gaarnay halka kan oo arintayada ku jirta waxa weeye gogoshii nabadda ee gobolka Sanaag lagaga wada hadlayay waxaanu dhignay ragga iyaga kale halkan isugu yimi ee madax dhaqameedkii annagoo isku dhan in gogol nabadeed aanu fidinno oo aanu u fidinno shirkaas ka socda ceelbu aanu u fidinno oo ay naga aqbalaan baanu ka rajaynaynaa inay gogoshaa naga aqbalaan ayaanu ka rajaynaynaa Ceerigaabo yaalaa insha Allah wuxuu noqon doontaa kii aynu ku dhamaystirno wax alaala wixii khilaaf ah halkaa ka dhacay ayay noqon doontaa gogoshaana waa fidinay wabillahi tawfiiq halkan waxaanu baaq uga diraynaa nabadeed oo walaalnimo oo kalgacayl oo wada dhalasho beesha warsangani ee ku shiraysa tuulada la yiraahdo ama magaalada la yiraahdo Ceelbu ee ka tirsan gobolka Sanaag walaalayaal waxaan idinka filaynaa in shirkiinaasi uu noqdo shir guud ahaan gobolka iyo mandaqada iyo Soomaalilandba nabadu horseeda walaalayaal waxaynu nahay dad walaalaah oo wada dhashay oo aan meel la kala tagi kareynin waxaan idinka codsanaynaa aad iyo aad idinka codsanaynaa inaanay caadifad iyo cadhada dhacday iyo dhibta yaree dhacday aanay idin qaadin oo aanay talada shirka ka mid noqonin waxaanu ka xunnahay wixii qalloocday oo dhan ee ka dhacay gobolka Sanaag waanu ka xunnahay waxaanu diyaar u nahay inaanu daweyno oo aanu guud ahaan daweyno gaar ahaanna Ceerigaabana sii daweyno guud ahaan waxaad ka tabanaysaan oo dhanna aan daweyno walaalayaal shirkiinaasi waa nagu muhiim waa waran nagu yaala waa waxa annaga aan shirka inaan idinla fadhinaanu habeen iyo maalinba moodaynaa talana kuma lihin laakiin taladayadii halkan aan idiin soo marinaynaa waxaan idinka codsanaynaa oon idinka rajaynaynaa in wax wanaagsan oo idinkana idiin wanaagsan annagana noo wanaagsan ummaddana u wanaagsan inuu shirkiinaasi ka soo baxo oo aanu noqonin shir ku dhisma ama ku bilaabma caadifad iyo cadho kuna dhammaada caadifad iyo cadho ujeeddayada iyada ugu muhiimsan waa inta ay sheegeen wax waliba ujeedday leeyihin walaalayaal ilmaasarayaal hadal aan iska daba nidhahnoo badani ma hadhin laakiin waxaanu doonaynaa waxa qalbigayga ku jira inaanu idin tusno oo ah nabad 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 ehelnimo iyo walaalnimo ku dhisan wixii inaga xumaaday siday doontaba ha u dhacday shaydaan ka shaqeeyey waxaynu ku daweyn karnaa isu imaatin iyo wada hadal iyo dhaahid iyo wanaajin waxaan leenahay marka hore waa idin bogaadanaynaa shirka aad isugu timaadeen xaqna waad u leedihiin waxasaadna ogaataan in nidiyaddayada iyo waxaanu qabno aanu idiin soo bandhigno ah walaalnimo iyo nabad sidii lagu gaadhi lahaa iyo deganaanshiye dadka gobolkaa ku nool iyo guud ahaanba dadku waa dad walaalaa oo ehela ehelnimada iyo walaalnimadana
wixii shaydaanku ka shaqeeyo inay rag u kacaan ee u guntadaan oo la wanaajiyaba ayaa dhici jirtay haddana tiyoo kale ayaynu u baahannahay sida odayaasha iyo salaadiinta iga horreeya ay yidhaahdeen ilmaadarayaal iyo walaalayaal waxaad noogu soo hagaagtaan ragga halkan taagan iyo inta maqanba ay ku matelayaan xubnaha iyagan kooban aanu ka hadlayno waxaad noogu soo ogaataan aad nagu ogaataan nabad 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 iyo gogol nabadeed biidni illaahi tacaala wax kastoo qaldana lagu saxo dadkana lagu abuuro jawi waxay isu yihiin iyo wada noolaanshiyahooda lagu kala bogsado taasaad talada ku darsanaysaan niyad wanaaggaasaad ku darsanaysaan walaalnimadaasaad ku darsanaysaan fariintaasaanu shirka ceel bu ka socda waxgaradka iyo salaadiinta iyo dhammaan qaybaha bulshada isaga yimi ee warsangeli aanu idiin soo dirnay cid kasta oo dadka ehelka walaalahana waxaanu leenahay walaalayaal wax sharaf iyo wadaag iyo walaalnimo lagu waayey ku gaadhi mayno xumaan biidni illaahi tacaala ilaahayna inaguma kalifaynayn xumaan isnidhaa wax ku xalala asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu salaantaas waxay ku socotaa shirka ka socda ceelbu aad iyo aad baanu idiin salaamaynaa shirka waa taageersannahay waa soo dhowaynaynaa waxaanaanu ka filaynaa wax aad iyo aad iyo aad u wanaagsan baanu ka filaynaa malihin warsangeli waxba kuma dhicin malihin warsangeli waa iska baxay waxbaa jira dhaqaajiyey oo warsangeli halkaa gaadhsiiyey taariikhda warsangeli intii soomaaliya burburtay cid ay ishayaan iyo cid ay isdileen iyo meel ay cid ku kala tirsadeen midna laba maqalsay runtu tahay nabadgelyada dhinaciinna aad iyo aad iyo aad ba uga hayseen wada jirka aad ba uga hayseen wada noolaanshiyaana aad ba uga hayseen waxa maanta inagu soo kordhay waa waxoogaa inagu yimi oo qadara weeye cid kastana way ka iman kartaa xumaantu hadday dhinac iyaga ka timi oo shaqaaqoon yaryar oo hore dhaceen oo dhinacyada kala tirsadeen oo tani weynaysay inaan wax ka qabannaa baanu diyaaruna inaynu isugu nimaadnaa baanu diyaaruna inaynu haddii ilaahay ka dhigo hawshaa iyada aan meel ku tiirinaa baanu diyaaruna idinkana waxaanu idinka eegaynaa oo odayaashiiyo waayeelka ka eegaynaa inay iyaguna waddadii taa loo mari lahaa ay soo jeexaan maanta gacantiinnay ku jirtaa idinkaa meel u fadhiya idinkaa isugu tegey idinkaa rogrogaya idinkaa dhinac walba ka eegaya dadku waa dhowr nooc dad badanoo dagaal doonaya baa ku jira shirka laftigiisa afku dhiiglaa jiraya gacanku dhiiglaa jiraya kuwo kaloo idin abaabulaa jiraya kuwo kaloo dabshidaa jiraya kuwo nabaddii doonayaa jiraya kuwo ehelnimadii doonaya ku jira intaaba waxaanu leenahay annagu kuwa ehelnimada iyo walaalnimada iyo wada jirka iyo wada noolaanshiyaha doonaya yaanu taageersanna intaa in la eegna halkana idiin joogtaa oo wada ehelkiina oo walaalihiina ayaa halkana idiin joogtaa waxaanu doonaynaa walaalayaal inaynaan inta xumaanta taageerin inaynaan inta xumaanta dabagelin inaynaan inta ina burburinaysa dabagelin inteenna wanaagga wadda in la taageero annana diyaar baanu idiin nahay wax allaale waxaa ku bogsanaysaana diyaar baanu u nahay wax allaale wixii walaaladiin idinkala gaadhay inaanu idinkala bogsiinana ee reer ceergaaba kala gaadhayna diyaar baanu u nahay haddii ilaahay ka dhigo aad iyo aad iyo aad baa u mahadsan tihiin arrinta yadaana inaa ajiibtaan baanu u baahannahay waa codsi asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu